bismillaahi raxmaani raxiim. magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa ka socda weerar dagaal oo ay ku dagaalamayaan kooxaha xarakada al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya, kuwaas oo socdo dagaalkaas u socda muddo 30 saacadood ku dhow. tiriyo xalay toola dagaalkaas u socdaa, dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare intaba wuu leeyahay. ciidamadii soo afjari lahaana waa loo diiday, sidaan wararku ay noo sheegayaan. madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo kasoo hadlay wuxuu yiri waxaa soo afjari lahaa ciidamada harimacad si looma ogolaan, oo mas-uuliyiinka sarreeya ayaa khilaafsan. alfa groupna gacan bay ka gaareen dagaalkan galayo, taasoo ceeb ugu filan kooxda dowladda cusub ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ee loo yaqaan daamul jadiid. wararkii cusbeyna soo gaaraya waxaa ka mid ah madaxweynihii hore dowladda soomaaliya oo ka hadlay waana ayaan daro inay daamul jadiid wax ka qaban weydo khasaare maalmoodba ka dhacaya magaalada muqdisho iyo dadka aan waxba geysan ee dhibaatada loogu geysanaya ay u geysanayaan kooxaha xarakada al-shabaab. waa markii ugu horreysay madaxweynaha soo hadlay khasaare kale ka dhacay khasaaraha socdaa muddada lagu qiyaaso 24 saacadood ama 60 saacadood lamana soo afjarin. ciidamadii soo afjari lahaa ee haramacadna waa laga hor istaagay, siduu noo sheegay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. waxaana hor istaagay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo, wuxuu sheegay inay ku faraxsan yihiin ciidamada xarakada al-shabaab khasaaraha ay ka geysteen hotel xayaat ee ku yaala kilomitir 4